Filimkan waa qaybta kontonaad ee Resident Evil wuxuuna si degdeg ah ugu bilaabanayaa dhacdo hore u soo socotay dhamaadkii filimkii Resident Evil Afterlife ee daawo oo taxadarna. Alice iyo kooxdeeda kala tirsan shirkadda Umbrella oo ku sugan markabkooda dagaal ee dawliga ah ee shirkadda waxaa soo weeraray ciidan baarshuudyo wato oo ay soo dirtay Alice saaxiibteeda hore Jill oo saameyn ay ku yeelatay qalab lagu tijaabiyay oo laabteeda lagu xiray kaasoo gebi ahaanba bedelay mowqifkeeda kooxda. waxay gudaha markabka ku dilayaan dhowr nin oo soo weerarayaasha ka mid ah. Alice waxay qarxinaysaa diyaaradii dagaal ee hagaysa ciidanka taasoo ku soo duldhacday markabka waxaana ka dhashay qarax xooggan kaasoo ku tuuray biyaha. xaaladda Chris, Kaleekh iyo Kimart iyo kuwii kale ee markabka ku sugnaa wax war ah lagama helin. dhanka kale Alice waxay ka shaqaynaysay shirkadda ugu weyn uguna dakhliga badan caalamka oo la dhaho Umbrella Corporation. waxaa jirtay dhacdo uu xanuun kaga baxsaday shirkadaas oo T-virus lagu magacaabo. waxaa u dhintay dad badan. boqoradda cas faafitaanka xanuunka waxay kaga jawaabtay qaab naxdin leh. waxay ahayd calaamadda ugu xun ee xanuunka faafaya ka dhalatay waxayna isku dayeysay inay disho cid walba xitaa kuwa xanuunka aan qaadin. T-virusku kaliya ma ahayn mid dadka ka dhigayay markay dhintaan kuwa soo noolaada ee wuxuu ka soo saarayay manaxayaal. qisada waxay noo celisay magaalada Rockon oo guri ay wada joogaan qoys saddex ka kooban. Todd wuxuu doonayay banaankiinu aado markii zombie uu soo jabsado gurigooda uuna soo weeraray. Alice iyo inanteeda way carareen xilli zombiga ay bursanayeen. waxay la gashay qolka sirta halkaasna uu kaga daba yimid. kadib banaanka ayay u soo ordeen waxayna kula kulmayaan gabar la dhaho Rain oo gaariga kula baxsanayso. waqtigaas magaalada oo dhan zombie ayaa dhoobnaa. dadka horii gadaal ayay u ordayeen iyagoo wareersan. gaarigooda intii wadada uu ku sii jiray waxay la kulmeen shil. Rain way suuxday. Alice-na gaariga ayay kala baxday gabadheeda wayna la oraday waxayna kula soo dhuumatay gurigan. albaabka ayay xirtay laakiin zombiga oo badnaa awgood ayaa u soo jabiyay. waxay raadinayeen Alice iyana meel ay kula dhuumanaysay gabadheeda laakiin hal zombiya ayaa soo helay oo dagaal dhexmaray kadib way dishay. intaa kadib waxay aragtay Todd oo noqday zombie kaasoo iyada dilay. Alice ayaa ka soo kacday goobtan iyadoo la heesto. Jill ayaa su'aalo weydiinaysa Alice oo ku saabsan nolosheeda hore laakiin waxay ku guuldareysanaysay inay wax xasuusato. iyadoo is heshay iyadoo joogto bartamaha magaalada Tokyo oo xanuunka ka bilaabanayay. roob ayaa soo da'ayay markii haweeney zombie ah ay soo muuqanaysay waxayna qaniintay nin ag taagnaa. xanuunkana wuxuu bilaabay inuu ku faafo qaybaha haray ee magaalada Tokyo. Alice inay halkaas ka cararto ayay isku dayeysay laakiin zombiga oo badnaa ayaa soo bursanayay. waxayna u dilaysay hal iyadoo raadinaysay waddo ay ku baxsato. waxay ku soo noqotay xarunta waxayna arkaysaa ciidan dhintay waxayna la kulantay Ada oo ka mid ah Alberto Vasquez falfulayaashiisa ugu firfircoon. Ada waxay u sheegtay Alice inay ka mid ahayn shirkadda Umbrella. Alice ayaa midi qoorta ka saartay iyadoo doonaysa inay disho. Wesker ayaa shaashada darbiga ka soo muuqday wuxuuna u sheegay haddii disho inay heli doonin meel ay kaga baxdo goobtan. Alice waxay jabisay shaashada oo ay ka arkaysay iyadoo ku turtay midi laakiin Wesker dhanka kale ayuu isla markiiba ka soo muuqday. wuxuu u sheegayay boqoradda cas ee la shaqaaleysiiyey kadib xanuunkii baxsaday ee hadda maamulayso rugta shirkadda Umbrella. Ada ayaa u sharaxaysay Alice in saldhigga uu yahay biyaha hoostooda uu ku yaalo Kamchatka Russia oo halkii ay weerarada qarsoodiga ah kasoo abaabuli jireen Sovietka. sida rugta loogu talagalay soo saarista T-virus saldhigga ayaa waxaa naqshadeysay dalladda Umbrella kuwaasoo u soo saarta ciidan ay ku adeegtaan iyo cudur qarxiyaal si ay u muujiyaan saameynta viruska si ay saldhigga uga galaan dhanka bariga. iyo Alice iyo Ada siday ku baxsan lahaayeenbo. Wesker ayaa abaabulaya koox madax bannaan oo 4 nin ka kooban. kooxda waxay miinooyin ku soo rakibeen saldhigga agtiisa waxayna ku borograamiyeen 2 saac si ay u hubiyaan in qof walba waqtigaas gudaha ku jiro si saldhigga dhan ay u gubaan. kooxda waxay Alice iyo Ada kula kulmi doonaan magaalada Rockon. Alice iyo Ada waxay la kulmeen 2 nin oo riboodi ah kuwaasoo soo saartay shirkadda Umbrella. waxay rabeen inay dilaan labadooda waayo waxaa soo dirtay boqoradda cas laakiin Ada iyo Alice labadooduba way u dhameeyeen iyagoo qarxiyay. boqoradda cas way ogaanaysaa in weli nool yihiin oo ay badbaadeen. dhanka kale kooxda waxay la dagaalamaysay ciidan zombie ah waxaana dhex maray dagaal la isku gubtay xilli kooxda ay baabi'iyeen zombieski oo dhan. Ada waxay Alice u sheegtay in dalladda ay u adeegsato shaqaale qaas ah iyo ciidan marka virus baxsado iyana waxay ka mid tahay ciidankaas oo gaaraya ilaa 50 oo shirkadda Umbrella ay shaqaaleysiisay kuwaasoo kaliya xasuusan kara waxyaabaha taagan. Becky, Todd iyo Rain iyagana qayb inay kala yihiin ayay u sheegtay.
mar waxay noqon kartaa hooyo gurigeeda joogto, nolol kale waxay noqon kartaa haweeney ku ganacsanaysa New York. marka saddexaad waxay noqon kartaa askariyad u shaqeynayso shirkadda Umbrella. Alice waxay dilaysay zombie u soo galay xilli sheekada ay u socotay, waxayna la kulmaysaa inanteeda taasoo aan ogeyn hooyadeeda in la shaqaaleysiiyey. Becky ayaa hooyadeed u sheegayso inay isku qarisay sidii hooyadeeda ay amartay. Jill iyo ciidankeeda ayaa banaanka soo istaagay, kuwaasoo soo xiray wadooyinkii ay ku baxsan lahaayeen oo dhan. kooxdan waxay ka jabtay kooxda kale maxaa yeelay waxaa dhacay isku dhacyo fara badan. waxaa jooga halkan hogaamiyaha dalladda iyo saaxiibada Alice ay wada shaqeynayeen, waxaana laga soo diray saldhigga waxaana laga dalbaday inay isdhiibaan. Alice waxay aqbashay iyadoo taasi u sameynaysay badqabka inanteeda. sidaasoo tahay Ada ayaa bilowday inay xabadeyso askarta si ay Alice ula baxsato gabadheeda. Alice iyo Becky waxay la kulmeen Raintii saxda ahayd. Alice way xasuusan weeday Rain. Becky ayaa u sheegaysay inay tahay qoftii badbaadisay hadda ka hor. Alice waxay ka codsatay Rain in gabadha ay u ilaaliso intii ay kaga soo noqonayso. kooxda ayaa halkan ku sugan. xayawaan weyn ayaa la booday mid ka mid ah, wuuna dilay, halka kuwa kale ay bilaabeen inay rasaaseeyaan. Alice ayaa la imaatay gaarigeeda waxayna ku dhufatay xayawaankii, waxayna ku wargelisay kooxda inay is adkeeyaan oo howlgalka si taxaddar leh u fuliyaan. halkaas ayay ka soo baxsadeen, waxaana bursanayay ciidan zombie ah iyo xayawaano waaweyn. xayawaanka weyn ayaa dilay Rain oo dafay Becky, xilli kuwa kale ay la dagaalamayeen ciidanka Jill. Alice waxay dilaysay xayawaanada kale iyadoo hub adeegsanaysay, waxayna soo badbaadisay Becky. markii lagu guda jiray baxsashadooda waxay soo gaartay Alice goobta dadka Kobiaska lagu habeeyo, waxayna ku aragtay iyadoo qof u eg iyo Becky hooyadeed qofkii u ekaa markay aragtay waxay weydiisay inay hooyadeed tahay, laakiin waxay u sheegtay Alice in midda la socota hooyada saxda ay tahay. xayawaankii weynaa ayaa daba socday. Alice waxay ku dadaashay siday ku dili lahayd, waxayna ku duushay qalab baarshood camal ah, waxayna ku qarxisay dhismaha. kooxda ayaa sidoo kale badbaaday iyagoo ku sugan qalab aan xabada karin gudihiisa, waxayna sugayeen in gargaar loo soo diro oo la badbaadiyo. laakiin waxaa si kadis ah weerar dhanka hoose kaga yimid markab ay hogaaminaysay Jill. banaanka ayaa lisla yimid. Jill waxay soo weerartay Alice. Rain waxay qaadanaysay cirbad awood kordhinta si ay u hesho awood baaxad weyn. waxay meesha ka saartay Ada, waxayna la dagaalamaysaa kooxda inteeda kale. Alice waxay awooday inay burburiso qalabkii lagu maamulayay Jill, waxayna ku soo celisay sidii caadiga ahayd. Alice maynan rabin Rain inay disho, sidaa darteeda xabadihii ayaa waxay ku dhufatay barafka hoose. markii meeshii bahul noqotay way ku dhacday Rain, waxaana hoos u sii jiidanayo zombies. Alice ayaa dhulka ula dhacday dhaawac soo gaaray dartiis, laakiin xoogaa kadib waxay ka soo toostay iyadoo la saaran helicopter kuwa kale. Alice, Ada, Becky, Leon iyo Jill waxay u socdaan saldhigga Wesker. Alice waxay kula kulmaysay Wesker xafiiska Oval ee aadka loo xanibay ee ku yaala gudaha aqalka cad, oo amnigiisa ay la wareegeen ciidamada badda oo ay wehelinayeen kuwa qalabka sido. wuxuuna ku diray cirbadda T-virus taasoo u soo celisay awooddoodii hore, maadaama Alice ay tahay qofta kaliya ee xamili karay, waxayna noqotay hubka ugu dambeeya ee la adeegsan karo. Wesker wuxuu u sharaxayaa iyagoo saqafka aqalka cad taagan in boqoradda cas ay isku dayayso inay tirtirto bini'aadanimada. inta ka soo hartay ee aan cudurka qabin waxay ku jiraan saldhigga. waa mowqifka ugu dambeeya ee bini'aadamka lagu badbaadin karay. ciidanka dalladda Wesker waxay difaacayaan aqalka cad, waxaa wehelinaya inta ka hadhay ciidamadii qalabka siday ee Mareykanka. sidoo kale ciidamada qalabka sido waxay ka soo horjeedaan kooxo aad u badan oo zombieska ah oo fayraska saameeyay iyo kuwo kale oo qorsheynaya falal dambiyad inay ka fuliyaan gudaha dalkaas.